دوغن ورأناقو اختيارا لين هاي ضد خيار لهان هوان هاي اسخبنا ها خيارا لين هاي اختيارا لين هاي قف بالآدمي tani runtii waa dhacdo xun ama tani waa muuqaal xun oo runtii xaqiiqadii aan dabcan laga aamusi karin sidoo kale dhaqan xumadan ay la yimaadeen labadan haween isla cadaradan ugu dambeeyay ee ku nool magaalada Muqdisho waa sidee muuqaalkeeda ay ku baahisay labadan haween oo isku sheegay laba haween oo isqaba runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri dumarna dumar ma geeyo ragna rag ma geeyo laakiinse wax kasta Ilaahay talataal ayuu ka dhigay oo lab iyo dhadig ayuu kala sameeyay si uu dadku u tarmo ama waxyaalaha kale ay u tarmaan sidoo kale caalamkan ay joogno waxa jira dad badan oo dhaqanada noocaas oo ku faafinaya inta lacag siisa hay'ad laakiinse waxa nasiib darro aad u xun in ay kamera soo horfaleysaan social media ay soo dhigeen muuqaalkooda iyagoo oranaya waan isqabnaa ha nool hambaliyayo runtii dadka ku mashquulay waa sidoo hadalka u dhigtay in ay iska dhaafaan oo camal yeeshaan sidoo kale hadaba muuqaal iyo xog ururin ayaan iga sameeyay saaxiibayaal haddaad ku cusubtay channelkan xog bixinta wararka ugu horreyn subscribe ku samee si uu gaarno 100,000 oo subscribe waxaana rajaynayaa in hadda ay saarnay wadadii guusha ay ku gaarleen 100,000 oo subscribe like nasan muuqaalkaygan haddii uu ku cajab galiyay labadan haween waxay ku nool yihiin magaalada Muqdisho sidoo kale barta YouTube ay ku leeyihiin ayay ku baahiyeen laba maalin ka hor in ay labadan haween isqabaan iyagoo muuqaal iska soo duubay dhaqan xumo ah runtii muuqaalkan oo indhaha u wacnayn ayaa anigoo niga raali gelinaya in aan muuqaalkan tuso runtii hordhaca barnaamijka ayaan xagga hore nagu soo tusay laakiinse muuqaalkan runtii wuxuu noqday mid ay dadku isla dhexmaraan 24 saac ugu dambeeyay baraha bulshada kadib markii aan saameyn weyn iyo xog ururis aan ku sameynay labadan hablood mid waxa lagu magacaabaa midna magac runtii magacyo qarqara ayay sheegteen ama runtii magacyadooda caadiga oo way ka dhaceen oo magacyo kale ayay sheegteen laakiinse magacyadooda runta ma sheegin sidoo kale barta YouTube-ka ayay runtii waxay ku qorteen lamaanaha Muqdisho wan laakiinse runtii waxay noqotay arrin aad uga xumaadaan dadka social media ku dhex jira hadaba sidoo kale dad badan oo tiro aad xoogan ayaa ka soo falceliyay halkaas oo runtii ay kadib markii ay ka noqdeen sidoo kale ay sheegeen in ay ka noqon doonaan muuqaalkan ay iska soo duubeen laakiinse Soomaalida ayaa noqotay jib ku soo urursi maxaad ku soo caanbaxdaa magida rada tidama in qaawan ayaa isla soo duubtaa mise adoo qaawan ayaa live soo galin qalbo qofku wuxuu ku soo caanbaxa ayuu raadinayaa laakiin caanimadii qofkii ayaa waxay noqotay in uu dib iyo dheefa ka maro sidii uu soo caanbixi lahaa uu social media lacag uga urursado laakiinse wada qaldan ayaa loo dhiibay oo wadadii saxda ahayd may marin hadaf iyo talent haddaad leedahay uma baahnid in aad qof iska dhaadhiciso kaliya waxay guushaada ku xiran tahay dadaal inaad muujiso sidoo kale Soomaalida ayaa ku mahmahda dadaal xajabaas gaara waana dhaafa laakiin saano hadalkayga halka ugu sibaxaya waxaan ahaan lahaa saaxiibayaal inaad muuqaalkan like saartaan si gaaro dad badan oo ka maqan tahay xogta rasmiga ee muuqaalkan oo ay ku raadinayaan hablahan isku sheegay in isqabaan runtii waxay ku raadinayaan furiis iyo in ay ku soo shaabaxaan kadibna ay ka noqdaan oo ay YouTube-ka u kala kaco sidaas darteedna ay dad badan oo shacbiga Soomaaliya ay ku garabsadaan laakiinse wadada ay ku dhaqaaqeen ayaa runtii ah mid aad u foolxun oo mustaqbalkooda iyo noloshooda saameyn ku yeelan doonta halkan waa channelka beenta wararka haddii aad nagu cusubtahay like saar muuqaalkeena siina share garee asxaabtaada kugu dhow waad mahadsantahay